السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا ذو السلامي أدونك مشهد كتشوكتان به كورس كان وكورس عصب كوسابسان بايثون programming from A to Z marka waxaynu bilaabaynaa marka hore fahmaynaa software-ka aad u baahnayd inaad install garaysataan ka ugu horeeyo Python-ka inaad install garaysataan marka website-kaas markaad tagto kabacdi waxaad ku dhufanaysaa download isaga automatically download gareynaya markaan hore aan u download gareeyay markuu Python-ka download gareeyo kabacdina Python-ka aad install garaynaysaan marka waxaa muhiim markaad install garaynaysaan iminka hadaynu ku dhufano kanan hore u download gareeyay waxaa muhiim markaad install garaynaysaan inaad halka doorataan add python.exe to path taasaa muhiima kabacdina next baad oranaysaa waad install garaynaysaan Python-ka markaad dhamaysaan installation-kiisa waxaad ku xijinaysaan Visual Studio waa editor-ka la isticmaalayay isagana website-ka la tagayo waa website-kaas kabacdina download Visual Studio ayaad oranaysaa markaad isna download garayso automatically ayuu markaa download-ku bilaabanayaa isagana markaad dhamayso installation-ka ayaad dhamaynaysaa oo Excel intaad ku dhufato ayaad markaa install garaynaysaa markaad dhamayso installation-ka ayaad markaa Visual Studio-hii furaysaa si aan marka Visual Studio-ha inuu u isticmaalno Python programming inuu ugu isticmaalno waxaa muhiim ah inaad extension-ka Python-ka aad install garaysaa marka extensions ayaa tagaysaa kabacdi waxaad raadinaysaa Python debugger-kaas ayaad markaa install garaysaa intaad ku dhufato ayaad halkana dhowto install ayaa soo bixi doonta meesha hadda aniga aan install u leeyahay maadaama aan horey install gareeyay install-kaas aad ku dhufanaysaa marka isaga install garaynaya editor-kani waa ka ugu muhiimsan waxaana loogu talagalay Python programming ayaa loogu talagalay waxaad aragtaan in matalan iminka 59 million times ayaa la download gareeyay marka waa editor waa extension muhiim ah installation markaad dhamayso kabacdi new folder ayaa furanaynaa waxaad oran kartaa open folder ama waxaad tagi kartaa file open folder ka mid ah folderada computerkaaga ayaad furanaysaa anigu hadda Python baan haystaa matalan folder cusub ayaan halkan ku sameynayaa waxaan bixinayaa YouTube kabacdi folderkaas ayaan gudihiisa gelaynaa on select folder oranaynaa taas macnaheedu waxay markaa iminka folderkii ayaa inoo furan halka waad ka aragtaan YouTube uma baahni inaan mar walba haddaan rabo inaan file cusub samaysto ama folder cusub samaysto uma baahni inaan tago file explorer-ka inaan tago uma baahni halkan aan ka samayn karaa matalan haddaan rabo inaan file cusub samaysto new file baan oranayaa test.py halkaa waxaynoo py-gaas waa muhiim extension-kaas wuxuu tusayaa file-kan inuu yahay Python saad u aragtaan uu isbedelay icon-kii ugu gartay inuu file-kan qorayo inuu yahay Python waxaad kaloo arkaysaan markaan print dhaho tab baan taabanaya uu dhamaystirayaa open bracket markaan dhaho bracket-ka uu xidhayaa maadaama aynu extension-kaas install garaynay iska waran haddaynu halkan ku qorno halkan run xaggan aad ka oran kartaa run haddaad doonaysana waxaad oran kartaa run start debugging ama start without debugging faraqa u dhexeeya marka aynu baran doonaa laakiinse inta badan waxaa ka dhaqso badan start without debugging ka markaynu ku dhufano Python debugger inaad doorataa kabacdi markaa iska warankii kuu soo qoray laakiin waxaa ka fudud inaad halkaa play aad ku dhufato haddii aan rabnaa folder cusub samaysano halkan u baan teginaa folder ama right click intaan dhaho ayaan oran karaa new folder here marka new folder iminka haddaan dhaho lesson 01 folder cusub ayaan halkan ku sameeyey folderka gudihiisa haddaan rabo inaan file kusii samaysto intaan isaga dul tago ayaan oran karaa new file taasaa muhiima in la fahmo haddaan iminka folder labaad haddaan iminka halkan ku sameeyo new folder lesson 02 waxaan haysanaa laba folder baan halkan ku haysanaa iminka marka kolba kaan doonayo inaan file-ka geliyo inaan dul tagaa oon dhahaa right click new file
ama waa inaan halka intaan tago new file dhahaa lesson1.py hadda waxaad aragtaa inuu markaa filekan xaggan uu ku jiraa haddaan rabo inaan halkan file dhex geliyo isagana inaan isaga dultagaan dhahaa new file lesson1.py markaas uma baahnid inaad file explorerka isticmaasho haddii aad doonaysa inaad filekan meesha ku jira aad ogaato waxaan intaan right click ku sameyn oran karnaa reveal in file explorer ayaynu tegaynaa folderkii aanu sameynoo dhan wakaa marka python lesson 1 iyo lesson 2 baynu sameynay iyo test.py lesson 1 waxaan dhex gelinay file lesson 1.py 2giina sidoo kale marka uma baahnid inaad mar walba explorerka isticmaasho waxaago dhan halkanaad ka isticmaali kartaa marka insha Allah halkaan ku gabagabeynayna casharka ku horeeya casharada labaad waxaynu guda geli doonaa sidii loo program gareynay pythonka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh